sida xeeroosaadku uu qorayo xildhibaanada waa inay soo xaadiraan 9ka gudoomiyaha uu soo fariista 10ka halkan waxaan soo fariistay 10kii xeeroosaadku wuxuu qorayaa saacad dheeriya in lagu daro hal saac dheeriya aan ku daray saacadda hadda waxay tilmaamaysaa 12 iyo 4 daqiiqo ay tilmaameen tirada hadda joogto waa 116 kooram ma dhama waxaan idin sheegaynaa markaa maalintii ugu horeysay oo la rabo fadhiga inuu furmo kal fadhigii shanaad fadhigiisii koowaad kooram haddaan weynay waxay la tahay arrin ceebteeda baarlamaanka ay ku soo noqonayso waay golaha shacabka ayay ku soo noqonay waxaan sheegaynaa fadhigan fadhiga xiga waa isniinta kooram dhammaystiran ayaan rajaynaynaa kulanka annagana maanta maba furmine hadda taagina la iskama indhatiri karo oo dastuur kaliya lagama hadli karo ammaanku waa priority lagama hadli karo dastuur haddii aan ammaanka dalka iyo caasimadda gaar ahaan laga hadal iyo xukuumaddu si ay u carqaladayso arrintaa wasiiradii ay ahayd inay yimaadaan golaha oo 40 iyo dhowr wasiira ayay waxay ka hakisay inay golaha yimaadaan si aanu kooram ku buuxsan waxaan ballan ku qaadaynaa haddii fadhiga ku xigo golaha wasiirada ay imaan waayaan fadhiga oo waliba ay farmoonti imaan waayaan wallaahi baan ku dhaartay anaa oo kacaayo moojinaan ka keenaynaa guddigoodna waa ridaysa amnigu ku jiro aad iyo aad baan uga xunahay mas'uuliyadda amniga waxaan caddaynaynaa inay dad leeyihiin dadka waa in lagula xisaabtamaa waa inay mas'uuliyadda cidi qaadaa amniga dadku wuu dhammaaday waxaan u dhaaranay shacbiga difaaciisa iyo diinta iyo dalka saasaan ku soo jaraya hadalkayga aad iyo aad anigoo uga xun waxaan maanta ka dhacay baarlamaanka maxaa yeele golaha wasiirada dhib badana lagu qabaa markay ayagu dan leeyihiin oo ay rabaan inay baarlamaanku qasaan waxay u imaanayaan si bug leh ayagunbaa soo buuxina golaha markay rabaanoo saan oo kale sida ka dhacday ma doonayaan in laga hadlo dastuurka ma doonayaan in laga hadlo muxuu ahay amniga ma doonayaan guntamka inuu dhammaystirmo sidaas darteed baa waxay kaliftay inuu kooramkii dhammaan waayo labada mawduuc muhiim ah awgood golihii wasiirada 60kii wasiir waxaa ka joogtay 4 wasiir oo keliya hoostaa laga taabtay si ajandaha iyo kooramka baarlamaanka uusan u buuxsamin hoostaa laga taabtay xukuumaddii dayacday amniga dalka xukuumaddii dayacday inay dhammaystirto dastuurka dalka xukuumaddii dayacday inay dadka Soomaaliyeed u adeegto maantay wasiiradeediina waxay baajiyeen oo amar lagu siiyay inaysan tagin fadhiga golaha shacabka uu ku furmayo si ajandayaasha isla xisaabtanku uusan uga bilaabin dadka Soomaaliyeed dhimanaysa ma qabato dadka Soomaaliyeed rajada ku xiraya baarlamaanka inuu wax socod la xisaabtan la yimaado wax ka tamaan markaad baan wax nahay هلا Anilis Furniture Design waxay si xamaasad leh idinkugu soo dhaweynayaan qiimo jabinta bisha 10 Abriil bisha 10 Abriil waa bisha la bedela alaabta waxaanu dukaanku samaynayaa qiimo jabin ilaa iyo 50% ka soo gaar xaraashka alaabta oo yuusan ku dhaafin waxaa laga rabaa oo kaliya la wadaag muuqaalkan saaxiibada kadibna soo booqo dukaanka Anilis Furniture Design 2734 Street Edmonton London yuusan ku dhaafin fursadan qaaliga ah Anilis Furniture Design walaalaha Osay Foundation Anilis Furniture Design nolol raaxa leh Anilis Furniture Design Garocha